Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada kanaalkeena. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa xog ku saabsan shirkadda Africell, sababaha keenay inay ka baxdo dalka Uganda, casharada laga baran karo shirkadda Africell iyo ka bixitaankeeda, iyo shirkadee bedeli karta shirkadda Africell. Shirkadda Africell waxaa la aasaasay sanadkii 2000 waxaana shirkaddan helay nin lagu magacaabo Siyaad Dalool. Waxaa si joogto ah shirkaddan u isticmaala ilaa 11 milyan oo qof. Shirkaddan waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka, balse xarunta looga taliyo waxa ay ku taalaa dalka UK. Africell waxa ay Uganda soo gashay sanadkii 2014 iyadoo iibsatay shirkaddii la oran jiray Orange Uganda, iyadoo hadafkeedu ahaa in ay noqoto shirkadda koowaad ee adeegyada xiriirka bulshada. Shirkadda Africell wadamada ay ka howlgasho waxaa ka mid ah Democratic Republic of Congo, Gambia iyo wadanka Sierra Leone. Sidoo kale dhammaadka sanadkan 2021 waxa ay shirkaddu qorshaysay inay ka howlgasho dalka Angola. Shirkadda Africell hadafkeedu waxa uu ahaa inay noqoto shirkadda koowaad ee wadanka Uganda, balse dadaal walba oo ay samaysay waxay dhaafi weysay inay noqoto shirkadda saddexaad ee wadanka, oo mar walba waxaa ka horeeyay labada shirkadood ee kala ah MTN iyo Airtel. Shirkaddan waxa aad loogu ammaanay dhinaca xirmooyinka khadka iyo wicitaanada bilaha ah. Sanadkii 2020 shirkaddan waxaa loo aqoonsaday shirkadda koowaad ee adeegyada bulshada si fiican u gaarsiisay, ama waxa loo yaqaano service delivery. Sidaas darteed, sababta koowaad waa inay gaari weysay hadafkeedii ahaa inay noqoto shirkadda koowaad ee wadanka. Sidoo kale waxaa jira sababo ka qayb qaatay ka bixitaankeeda dalka Uganda. Sababaha ka qayb qaatay ka bixitaankeeda dalka Uganda markii laga soo tago sababta koowaad oo ahaa inay hadafkeeda gaari weyday waxaa ka mid ah in shirkaddu sanadkii 2019 ay khasaartay 1.5 trilyan oo Uganda shilin ah, oo u dhiganta ku dhowaad 424 milyan oo dollar. Isla sanadkaas 2019 waxaa loo magacaabay shirkadda gudoomiye cusub si uu soo kabasho u sameeyo, balse isagii xitaa wuxuu is casilay bishii March ee sanadkan 2021. Deymo lagu lahaa oo gaarayo ilaa 250 bilyan oo Uganda shilin ah, oo u dhigma ilaa 70 milyan oo dollar. Shirkadda Africell iyo taariikhdeeda dalka Uganda waxaan ka baran karnaa cashiro muhiim ah, gaar ahaan dhinaca ganacsiga. Casharada aan shirkaddan ka baran karno waxaa ka mid ah hadafkaagu haddii uusan macquul ahayn waa inaad beddesho. Shirkaddan waxay dalka Uganda ka lahayd hadaf weyn, balse marka ay aragtay inaanu suurtagal ahayn waxa ay go'aansatay inay beddesho oo ay wadankaba isaga baxdo. Oo maxay uga baxday wadanka? May kaalinteeda saddexaad isaga jirto? Waa su'aal ay dad badan isweydiinayaan, balse warqadda ay shirkaddu ku faafisay in ay wadanka ka baxayso ayay ku sheegtay in saadaasheeda ganacsi ee dalka aysan wanaagsanayn, sidaas darteed ay dooratay inay ka baxdo dalka Uganda. Cashirka labaad oo isleeyahay waan ka baran karnaa arrinta ku dhacda shirkaddan ayaa waxay tahay kuwa kula tartamaya inaad meesha ka saarto waxaa ka fiican in aad ka fiicnaato iyaga oo weli jooga. Shirkaddani dhinaca khadka aad ayay uga fiicneyd shirkadaha kale sida dad badani ay qabaan, iyadoo weliba shirkadahaasi ay ka waaweynaayeen sidoo kalena ay bixinayeen khad, ayay ku guulaystay shirkaddan in ay ka wanaagsanaato. Balse waxaa bulshada la wadaagaynaa xog ku saabsan adeegyada labada shirkadood ee haray, mid walba dhinaca ay ku fiican tahay iyo dhinaca aysan ku fiicnayn. Taas waxay keenaysaa in bulshadu ay iyagu doortaan midda ay rabaan. Waxaan halkaan rabnaa inaan ku caddeyno in aanan wax xiriir ganacsi ah la lahayn labadan shirkadood midna. Ujeedkeennuna ma ahan xayeysiin ee waa xogsiin iyo xalinta dhibaatada ama baahida xogeed ee hadda jirta. Inta aadan qaadan simkaar shirkadeed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato adeegga aad uga baahan tahay shirkadda simkaarkaas leh. Ma internet ayaad ka rabtaa oo internet ahaan baad u isticmaali doontaa, mise wicitaano gudaha ah ayaad ka rabtaa? Sidoo kale qiimee jeebkaada oo isweydii shirkadee ayaad adeegsan kartaa oo aad iibsan kartaa adeegyadeeda. Xog baaris ay baadidoon samaysay ayay ku ogaatay in labada shirkadood ee haray ee kala ah Airtel iyo MTN ay labadaba bixiyaan adeegyada shirkaddii Africell. Sidoo kale waxaan ogaanay in dhanka xawaaraha internetka ay ku fiican tahay shirkadda Airtel, sidoo kale dhinaca qiimaha ay jaban tahay isla shirkadda Airtel. Sidoo kale waxaan ogaanay in dhinaca qancinta macaamiisha ay ku fiican tahay shirkadda MTN. Adiga ahaantaada shirkadee kula fiican labadan shirkadood? Oran mayno shirkad hebel ha la qaato annagoo ixtiraamayna ganacsiga shirkadaha, balse waxaan filaynaa in xog
xogta aan ku siinay ay kaa caawin karto shirkaddii aad dooran lahayd. Haddii aad u baahatid meelaha aan xogtan ka soo xigaynay, waxaad fiirin kartaa description-ka muuqaalka ee hoose. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan like saar muuqaalka haddii aad ka heshay. Wixii fikirkaada ahna hoos nagula wadaag. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.